soo dhaweyntii iyo hambaliyadii iyo maaragtay bogaadintii loo diray madaxweynaha ee dowladda goboleedka galmudug Mr. Allen oo aad maaragtay ugu bogay ka soo qaybgalka ay ka soo qaybgaleen dadweynaha magaalada Stockholm haddana khudbadiisii ayaa ku soo dhawaaneysaan madaxweynaha jaaliyadda Sweden maskaxdu meel kasta ha ka timaado si kasta ha u timaadee waa meeshii laga aasaasay iskugu yimaadeen jaaliyadii dibadda ee galmudug waay marka waa ku mahadsanyihiin aadaan ugu mahad celinaynaa annaga marka dadka jiiraankaaga ah aad nabadgelisid adiguna waa nabadgelaysaa haddaad fidna bilowdid adna waa lagu fidnaynayaa ogaada qof kasta ha ogaado anugu xamar meeshaan ku dhashay waay haddana
galmudug intii goora aan tagayay hal mar oo nabadeyn laga shaqeynay kaliyahan tagay waxaan doonayana waxa weeye carradoo wada nabada iyo Soomaali oo wanaagsan nabad ku nool inaan arkaan doonaya haddii alla yiraahdo gabdhaha meesha fadhiya waxaan leeyahay inta maqanna ha gaarsiiyaan war haddii raggu caajiso idinku soo kaco ii kaalaya xagga haddii alla yiraahdo waxaan idin xasuusinay xoogaa xasuus u baahan lamaanaha la haysto ee muddada dheer xariga lagu hayay waa dulmi soo maaha war hadday dulmi ay tahay aad qirsan tihiin si aanu ku soo dayno waa wada abuuri karnaa kulligeen magaceenni sharafteenni dadnimadeenni intaba waa ku xumaatay waa dad waayeela maanta sida ay ku nool yihiin ilaahay baa og waa tii la lahaa takhtarku u tegay muddo hadda laga joogo dhowr bilood naftaa ka bixi rabta waa tii la lahaa marka aanu codsanno waxaan anigu diyaar u ahay nuuc kastoo lagu soo daynayo inaan ka qayb qaato kow madaxweynaha ayaa markii dambe waxa uu shahaado sharaf guddoonsiiyey guddigii farsamada iyo shahaado sharaf iyo guddoonsiiyey jaaliyadihii iyo dadkii ka soo qayb galay halkaas iyo isagoo maaragtay u mahad celiyey soo dhaweyntii si idin muuqataba dadweynihii ku soo dhaweeyey halkan magaalada xaflad aan la soo koobi karin ayaa meesha ka dhacday madaxweynaha wuxuu u mahad celiyey kasoo qaybgalayaashii waxaa annaga hadda idinla hadlayo oo ah kommentaarka cajaladda maaragtay waxaa noo duubay aadan qoslay oo ka socda TV Horseed iyo Somali Star Rashiid Sabri halka uga mahad celinaynaa waxaa kaloo maaragtay madaxweynaha uu soo gabagabeeyey shahaado sharaf aad baa u mahadsantihiin anigoo Cabdiqaadir Salo maanta oo sabti ah madaxweynaha galmudug iyo booqashadiisii waa mahadsantihiin